shirkan maanta magaalada Cadaado lagu soo xiray oo soconaya muddo 4 maalin ayaa waxaa looga hadlayay mideynta siyaasadda dawladaha hoose ee heer qaran iyo dawlad goboleedyada iyadoona ay ka soo qayb galeen maamulada Jubbaland, Koonfur Galbeed, wakiilo matalaya gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya Yaxya Cali Ibraahin ayaa warbaahinta u akhriyay qodobada ka soo baxay shirka. waxaa la sameeyay golo ka kooban 7 xubnood oo kala ah wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka, wasaaradda arrimaha gudaha ee dawlad goboleedyada iyo maamulada dhismaya. 2 goluhu in uu noqdo madal ay ku wada tashadaan kuna la faguraan horumarka iyo shaqooyinka ay wadaagaan hay'adaha sare ku xusan. 3 goluhu wuxuu mas'uul ka yahay qorsheynta, hogaaminta iyo kormeerka hanaanka wadajir. 4 waxaa la qeexay laguna heshiiyay waajibaadka iyo mas'uuliyadaha madasha. 5 waxaa lagu heshiiyay in dawlad goboleedyada ay mas'uul ka yihiin sameynta dawladda hoose. 6 waxaa lagu heshiiyay marka xasilinta la sameynayo in degmooyinka la isku raaciyo sida ay isugu dhow yihiin clustering approach. 7 waxaa lagu heshiiyay in la xoojiyo xiriirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee dawlad goboleedyada iyo maamulada dhismaya Banaadir, Hiiraan, Shabeellaha Dhexe. 8 wasaaradda arrimaha gudaha federaalka waa in ay xil iska saartaa sidii dhaqaale loogu heli lahaa hanaanka wadajir ee dawladaha hoose. wasiirada arrimaha gudaha iyo dawladaha hoose maamulada Galmudug iyo Koonfur Galbeed Jaamac Xasan Salaad iyo Cabdiraxmaan Ibraahin Aadan ayaa sheegay inay ku qanacsan yihiin qodobada ka soo baxay isla markaana ay u arkaan muhiim gooni ah. runtii shirkii socday muddada 4 maalmood ahaa wuxuu ku dhamaaday si isfahan ah, si masaalixdii ummadda Soomaaliyeed ay ku jirto, si qof walba ra'yigiisa iyo taladiisa lagu ixtiraamayo. waxaana ka soo baxay waxyaabo aad iyo aad dana u ah ummadda Soomaaliyeed. dabcan waxaan filayaa dokumentiga marka uu dambeyn la howlgeliyo inuu noqon doono dokumenti ahmiyad gaar ah u leh wadajirka iyo isku haynta Soomaalinimada iyo wada shaqeynta dawlad goboleedyada iyo maaragtay dawladda federaalka intaba. dabcan waxaan rajaynayaa fikirkan cidii iska lahayd oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ahayd aad baan ugu mahadinaynaa. dawlad goboleedyada ajiibayna arrintan inay qayb ka noqdaanna mahad gaar ah ayaan maaragtay aan u jeedinaynaa. Maxamed Maxamuud Owaadan, TV-ga caalamiga Universal, magaalada Muqdisho.